heesta calanku waxay muujinaysaa rajada weyn ee ay ka qabaan inta badan Soomaalidu in madaxweynahan cusubi isbeddel muuqda uu u keeni karo waddankan dhibaatadu ay haysatay muddada dheer. caleemasaarkiisa waxaa ka soo qayb galay madaxda gobolka oo ciidankoodu ay qayb ka yihiin kuwa midowga Afrika ee nabadda gacanta ka siinaya Soomaaliya. diblomaasiyiin iyo hay'ado caalami ah sida qaramada midoobay oo taageero u muujinaya madaxweynaha cusub. laakiin madaxweyne Farmaajo waa uu dareensan yahay caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban dawladdiisa. waxaan diyaar idinla nahay inaan dhalinyaradaas la khalday aan gacmo furan ku soo dhaweyno oo aan siino waxay u baahan yihiin ay ku shaqaystaan iyo nolol. kuwa u shaqeeya al-qaacida iyo ISIS iyo ummado kale oo dalkan aan doonin inay istaagto waxaan idin sheegaynaa waqtigii waa dhammaaday ummadda Soomaaliyeed ee qaybsanaayeen. uma muuqato in baaqaasi iyo kuwa kaleba ay kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jirta dawladda ay u soo dabci doonto. maalmo uun kadib markii la doortay ayay ahayd markii weerar ay ku qaadeen suuq dadku ay ku badnaayeen oo ku yaalla magaalada caasimadda Muqdisho kaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 30 qof. inkastoo uu haysto taageerada shacabka iyo beesha caalamkaba waxaa ammaandarrida ka jirta Soomaaliya iyo dagaalka shabaab ay noqon karaan caqabadaha ugu weyn ee ku horgudban madaxweynaha cusub ee go'aamin doona inuu guulaysto iyo in kale. haddaba Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa la hadlay Xasan Cabdi Xayle oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya waxaana uu weydiiyey waa maxay caqabadaha ka hor iman kara madaxweyne Farmaajo. dhibaatooyinka waaweyn ee hor yaala haddii laga soo tago mawduuca ama ishiga ama yani nabadgelyada oo ahaa qodobkii koobaad ee dawladda asaga ka horreeyay ama Soomaaliya maanta xaaladda ka taagan yani nabadgelyo la'aanta ay tahay gaar ahaan ururka shabaab dagaalada oo wada waxaa ku soo xiga dib u heshiisiinta bulshada Soomaalida waayo haddii bulshada Soomaalida aysan haysan yani isku kalsooni dhexdooda ah iyo aaminaan ay aaminsan yihiin dawladooda midaysan يعني دولة الصومالية waxaa sahlanaanay waxyaabaha uu ka baqayo oo ah issue ka labaad oo dhinaca gudaha laga fiirsho xagga ammaanka dhinaca dibadda ka imaanay oo ah faragelinta dawladaha shisheeye ama kuwa dariska ha noqdaan ama dawladaha kale oo aan dariska ahayn laakiin danahooda ka hormarinaya dhibaatada Soomaaliya waan aragnay. khudbadiisa caleemasaarka markii uu hadlayay madaxweynuhu waxa uu baaq u jeediyay al-shabaab iyo kooxaha la dagaalamaya. ma kula tahay in ay dhageysanayaan oo ay qaadanayaan ama ana shabaab iyo ururada la midka ah inay baaq siyaasadeed ay aqbalayaan macnaha waa aragnimadan way tustay sidii wax rumaysan yihiin oo ayaga kaligood ismoodaan inay dadka uga saxsan yihiin ama ay kaligood muslim yihiin macnaha marka diinta islaamka la fiirsho wax sahlan ma aha waayo haddii uu qofka ku arko qof aan waxba xiriir oo san kala dhexin dhibkeeda ay leedahay runtii marka waa laga yaabaa dad yar inay ka soo tagaan gaar ahaan issue dhaqaalaha dhalinyarada la isleeyahay duruufaha qoysaskooda iyo hanti la'aanta ku tuurtay inay shabaab ay u shaqo tagaan. faahfaahin dheeraada oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga.